السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن ميل والبعض جوكتان كسر هذا برامج كان كوبان وأنا جهد لدونه حقيه وجود بيجي قلبات كقبل كسيتي يد ذا لذا أي دنيا وضان وحكرته عن سوق هذا دونا نعضو عن قروح بدنين أو كد عضي لفعيسة أو لجوء هذين يعيد ماذا جار كديجانكو إن يدت شعب هالكاسي كل باتين. dhinaca deegaanka canfarta inta aynaanu gudbin aan soo qaadano bal dhacdadan la xiriirta lafaciise sida la wada socotaan deegaanka Soomaalidu inta badan dadka shacabka mar walba dhibaatooyin kala duwan ayaa ka soo gaara maamulka mas'uuliyadooda iyaga haya maamulkaasi siyaabo kala duwan oo ama ha noqoto hab siyaasadeed ama hanaan kale oo intii la siyaasadeeyay qabaa'ilka la xiriira ha noqoto dhibaatooyin kala duwan ayaa mar walba soo gaara lafaciise sida la wada socotaan ma aha markii ugu horeysay ee dhacdadan maanta ka dhacday oo kale ka dhacday waxa jira dhacdooyin horeeto oo dadka shacabka halkaasi loogu geystay inta uu joogay maamulka madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar ama Maxamed Cumar ee hadda jira waxaana dhacday in ciidamada gaarka ah ee deegaanku halkaas ay tacadiye ka geystaan waxa ay dadka qaarkood leeyihiin ciidanka ma dhibaatadu waa siyaasadda ku dhaxmilantay laamaha amniga ee dhax gashay ayaa dhibaatada keenaysa waxa kale oo jirta dad siyaabo kala duwan iyaguna uga hadlayo oo beegsi iyo si gaar ah inay uga hadlayaan arintaasi inkasta oo arintaasi aan wax cadayna loo haynin laakiin marka aad fiiriso dhacdadan maanta ka dhacday lafaciise waa dhacdo aad u foolxun koow waxa loo baahan yahay ciidanku hubka meelaha looga baahan yahay inay la tagaan dadka shacabka aan lagu dhaxwadan waxaa kaleeto oo loo baahan yahay ciidanku waxa uu haystaa awood ay shacabka ku xiri karaan qofkii ay dambi ku haystaan ay xabsiga ku geyn karaan lagula xisaabtami karo laakiin malaha awood ay dadka xabad ula dhacaan oo dadka shacabka ah ee masaakiinta ah ee waxba galabsanin maalin walba looga oohiyo hadda 4 qof oo dhimasho iyo dhowr iyo 10 qof oo dhaawac waliba sida xogaha qaarkood sheegayaan laga yaabo labaduba inay inta ka bataan in ay si macna daraa ku dhacaan laguna eedeeyo ciidankii deegaanka ee shacabka inuu difaaca la doonayay waa runtii nasiib darro weeye aad u weyn xilli waliba ay dhibaato ka taagan tahay deegaanka oo dagaalo iyo colaado ay ka socdaan oo maamul kaleeto oo in muddo ay ishayeen una awood sheegtay dhinacyo kala duwan oo soo maray ay ishayaan inay iyagu shacabkii ku dhax noqdaan runtii waa musiibo waxaana loo baahan yahay qofka dhibaatadaas geystay in uusan ciidan noqonin reehebel la noqonin hebel la uusan noqonin intii la soo qabto isaga kaliya ay ku ekaato sharcigana la hortiigsado ee la geeyo kadibna dadka shacabka ah ee cadaalad helaan dhibaatada noocaasi ah uu geystay askarigaasi waa sida aad hordhaca ku soo aragteen dhacdadaas foosha xun ayaa ka dhacday lafaciise runtii waana nasiib darro waana mid u baahan wax ka qabasho waxaan u soo noqonaynaa gobolka City sida aad la wada socoteen maanta ilaa shalay wax dagaal ma aysan dhicin laakiin waxa jira dhowr diyaar garow oo kala duwan diyaar garowyo waa kuwa dagaalka iyo colaadii wali si horinayo oo labada dhinacba diyaar garow ayaa jira waxa kale oo iyadana uu diyaar garow ka jira dhinaca maamulka deegaanka canfarta oo dhinaca federaalka cabashooyin kala duwan oo dhinacyo badan leh gaarsiinaya isaguna sidii caadada ahayd waxa kale oo jirta baaqiyo ka soo baxaya dhinaca gudaha federaalka ama ha noqoto golaha arrimaha islaamka ama ha noqoto dawladda federaalka ah qayb kamida oo mas'uuliyiinta dhinaca federaalka ah ee gobolkan deegaanka canfartu ay gaarsiiyeen dawladda federaalka waxa kale oo iyadana jirta markii ugu horeysay arrin aan hore uga dhicin gobolka City markay dhacdooyinka noocan oo kale dhacaan waxa jirtay kala qaybsanaan dhinaca dhaqanka siyaasiyiinta iyo dadka bulshada deegaanka oo ku kala aragti duwanaada dagaalkaas sidaasna colaadda lagu joojin jiray markii ugu horeysay waxa soo baxday gobolka City dhaqanka iyo siyaasigooda iyo dadka bulshada iyo waxgaradka dhammaan dhinacyada kala duwan iyo maamulkan deegaanka ee qaybta hadda hawshaas ku jirta oo hoggaanka nabadgelyada iyo taliyaha ciidanku ay kamid yihiin inay isku aragti ka noqdeen mowqifkan la xiriira in deegaanadan la xoreeyo oo la difaaco aan ku horeyna marka deegaanka Soomaalida
sidaad la wada socotaan kulanka golaha fulinta waa kii shalay dhacay waxa uu hogaaminayay ama shir guddoon u ahaa madaxweyne ku-xigeenka deegaanka oo ah nin gobolka City ka soo jeeda waxaabihii looga wada hadlay waa kan halkan idin kula wadaagnay kulankaas laakiin waxa inta kadib jirta sidaad la wada socoteen mas'uuliyiin muddooyinkii ugu dambeeyayba goobaha furimaha ku sugnaa kuwaasi oo dhinaca logistikada ama dhinaca farsamo ahaan waxyaabaha looga baahan yahay hawlahaas iyo qaabayntooda halka kala shaqeynay mas'uuliyiintaas cabsi waxa jirtay maalmo dhaweyto markii ay soo baxeen wada hadaladii dhinaca federaalka Ethiopia loo aaday ama loo aaday Addis Ababa in ay kala bax dhinaca dhaqanka iyo siyaasiyiintii halka ku sugnayd oo dhinac walba lahaa iyo dadka shacabka ama maleeshiyaadkan dagaalka kula jiray dhinaca kaleeto inay jirto xogaan helay waxay sheegeen marka dhinacyadaasi in ay go'aan midaysan ka qaateen waliba si gaar ah ugaaska oo eedeymo loo jeedinayay muddooyinkii ugu dambeeyay in uu warcad ama mowqif cad uu ka qaatay sidaas la mid ah rag siyaasiyiin ah oo horay siyaasadda ugu soo jiray oo xildhibaano federaal soo noqday oo xildhibaano deegaan soo noqday oo maayaro dirdhaba iyo meelo kale soo noqday ayaa iyaguna oo eed loo jeedinayay oo inay dhinacyada kaleeto ama la soo adeegsado oo dhinacan dirdhaba oo deegaanka Oromadu ay hadda aad ugu xoogeysanayaan Oromadu iyo dhinaca federaalka in iyaga la adeegsanayo la eedeynayay dhammaan way isbariyeen waxa ayna sheegeen in ay dadkooda shacabka ahaa qayb ka yihiin lana mid yihiin kuna aragti yihiin arintaas waxa loo arkaa guul weyn oo u soo hoyatay nidaamkan ama qorshahan socda ee gobolka City la doonayo in nabad lagaga dhigo ama caqabadihii iyo shaqooyinkii dhibaatooyinka halka muddada ka soo taagnaa dadka shacabka ee gobolka haystay lagu soo afmeeray gabi ahaan taasi waana mid u dan ah dadka Soomaalida qodobka labaad waxa uu yahay maamulkii deegaanka Canfartu dadaal iyo abaabulkii ugu dambeeyay way kaga jiraan dhinaca dagaalka inkastoo ay mashaqo dhaxda baalanayaan la xiriirta dhaawacyo maxaabiistii maqnayd ama dadkii faraha badanaa ee laga qabtay iyo sidoo kaleeto dagaalka oo ay arkeen inuu hadda dhab yahay oo awal horeeto kolkay maalmo ay hawshu socoto waa la joojin jiray waxa ayna ku caban jireen oo ay aadi jireen dhinaca federaalka wadadii federaalkuna waxaad moodaa in iyaduna meel jiqanjiqiso adag gashay oo soo xirantay oo culays badan ayaa xaggaana laga soo sheegayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Marwa Caaisho oo ka soo jeeday deegaanka Canfarta ayaa cadaadis aad u badan ay saareen inay arrimahan ka hadasho iyadiina wax siyaasad ahaan iyo si hoose xitaa Ethiopia meel wax la isdaba marin kara ma suurtagal uma noqonin mas'uuliyiinta deegaanka ka soo jeeda inay arrintaas iyada ah ay wax saameyn ku yeeshaan marka waxay noqotay kali aha inay dhahaan baaqiyaha la soo saaro baaqiyadaas oo la xiriira colaadda hal la joojiyo markay timaadana deegaanka Soomaalida colaadba kuma jiro dad shacaba oo gobolkoodii difaacanaya iyo waxa ishaya maamulka deegaanka Canfarta oo duulaana halka inay istaagaan dadkii Soomaaliyeed ee arrinta lagala hadlay ee ama heer federaal ama heer deegaaniyadan runtiina waa iyada lafteedu waa qodob muhiim ah in la istaago qodobkaas isaga ah ama halkaas iyada ah inay noqoto meesha kulmisada ee la isugu yimaado inay noqoto iyadana qodob aad muhiim u ah weeye xaaladda marka guud ee wadanka ka jirta marka aan fiirina ama soo jirtay iyo tan markii la xiriiriyana waxa loo baahan yahay deegaanka Soomaalidu meeshan waxa jira isku tashi guud oo deegaan la isugu tashaday haddii la colaadaysan xitaa kuwa colka hadda deegaanka Amxaarada oo kale faana iyo maamulka deegaanka Amxaarada oo wada shaqeynayaan oola iyo maamulka deegaanka Oromadu waxyaabo ay ka wada shaqeynayaan baa jira laakiin Soomaalidu ma dhacdo nimankan kale ee deegaanka Canfartana jabhadahooda iyo iyagu waaba midaysan yihiin oo taas iyada waa la wada ogsoon yahay laakiin deegaanka Soomaalidu siyaasad ay ku kala qaybsan yihiin waxay ku kala qaybsan yihiin wax walba dhan kasta u kala qaybsan yihiin saas darteed haddii aysan midoobin Ethiopia weyn oo shucuubteedii saad aragteen ama xaaladaad aragteen ay ku jirto waa lagu meel u kala dhaqaaqay bay noqonaysaa marka idinka culayskii caqabadu idinku soo noqonaysaa markii ugu horeysay in la soo sheegayo xogo muhiim ah oo midnimo la xiriira arrimahaas runtii waa guul weyn oo ummadda Soomaaliyeed dani ugu jirto waad mahadsantihiin